xildhibaan Cabdiqani Xaaji Xasan oo ka mid ah murashaxiinta isu taagay qabashada xilka xildhibaannimo ee Golaha Wakiilada Somaliland ee doorashada dhawaan ka qabsoomaysa Somaliland ayaa maruu si gaar ah ugu warramay telefishinka Som News TV oo fariin u diray taageerayaashiisa isagoo ugu baaqay inay codkooda siiyaan si uu uga mid noqdo xildhibaanada Golaha Wakiilada ee Somaliland. anigoo ah injineer Cabdiqani Xaaji Xasan oo cabdi murashaxan Golaha Wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland ee gobolka Muqdisho anigoo ah ninka maanta warqada loo qoray ay u qoreen cuqaasha iyo waxgaradka iyo labada chief Nuur iyo Mahadba ay u saxeexayeen ninkaasna magacayga Cabdiqani Xaaji Xasan oo cabdi waxaan doonayaa inaan maanta halkan aan ka cadeeyo in aan ahay ninka u sharaxan Golaha Wakiilada taas oo sharaxnimadayda maanta aniga oo sharaxan oo la isku kay raacay oo intaas oo shir galay oo intii shir aan galay la isku kay raacay dadkii markaa sharaxnaana halka aan ku kala hadnay waxa dhacday in yarka bacdi in xukuumadda aan leeyahay in xukuumadda ka tirsanin uu faragelin soo geli qaban ku soo qaaday xaafadii iyo uqaashi ninkaana inaan halkan aan ka cadeeyo magaciisa ayaan doonayaa waa wasiirka Maxamed Axmed Maxamuud Cawad wasiirka maalgashiga arintaa waxaan ugu cadeynayaa oo saa u leeyahay inaan kala saaro xukuumadda iyo wasiirku markuu soo farageliyay arintaa wuxuu yidhi inanka kale waxa wata xukuumadda weliba wuxuu ku soo baxay buu yidhi liiska xisbiga ku soo baxay anigu arintaa ma believe karaysin waxaan qabaa arintaas inaa ay tahay arin xisbiga aan ka soo bixin iyo madaxweynaha toona aan ka soo bixin ee meel dhexe laga soo saaray waxaan ku leeyahay walaalo anigu waan wada hadalay markaan wada hadalay waxaan ku uri waxaa dadkaa la wado aniga laysoo saxeexay haddii cid kale jirto waa iga daba timi waxaana kala saaraya cuqaasha halkaa fadhiisa baan ku uri arrintaa waa diiday dhexnoona qabaan waa diiday waxaana ku leeyahay maxamedow haddii arrintaasi aad faraha kala bixi weydo anigu arrintaas cuqaashayda iyo dadkayga ayaa gacanta ku haya midda kalena waxaan leeyahay xukuumaddaan leeyahay anigu horta xukuumaddu inay reeraha soo farageliso ma qabo anigu xukuumadda dhalil ma soo jeedinayo waxaan dhaliisha usoo jeedinayaa waxaa weeyaan wasiirka ka tirsan xukuumadda waxaan xukuumadda u leeyahay wasiirka xukuumadda ku jira Aziz Xasan Sahal, Som News.